shirka 12aad ee arrimaha islaamka ayaa ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaana Soomaaliya uga qayb galaya culimada u diin Soomaaliyeed wariyahayaga Yusuf Kashmir ayaa warkan ka soo diray shirkan 12aad ee islaamka oo sanadkan lagu qabtay magaalada Kampala caasimadda Uganda ayaa waxa goobjoog ka ah furitaanka shirka Sheikh Mustafa Xaaji Ismaaciil Sheikh Abdirshiid Sheikh Al Suufi Sheikh Dr. Ali Maxamed Saalax iyo Sheikh Dr. Ahmed Jaamac Ismaaciil sidoo kale waxa munaasabada furitaanka goobjoog ka ah consulka safaaradda Soomaaliya ee Uganda Ali Qadar Wardheere waxaana uu shirka ka furmay masjidka Tawxiid ee ku yaala Kampala iyadoo mawduuca ay culimada ka hadli doonaan uu yahay beeca xalaasha iyo ribada xoogana lagu saari doono sarifka online-ka ah Sheikh Maxamed Cabdi Weli oo kamid ah mas'uuliyiinta masjidka Tawxiid oo ka hadlay munaasabada furitaanka shirka ayaa soo dhaweeyay culimada Soomaaliyeed sigana Soomaalida degan Uganda ugu baaqay in laga faa'iideysto cilmiga culimada martida ah sidoo kale qaar kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee dhigata madaarista lagu barto diinta Islaamka ayaa khudbad soo dhaweyn ah oo ay ugu tala galeen culimada goobta ka jeediyay علمك بيفاسيان علمنا علنك بين وزدانو عشيرة بيبليان علمنا عدوك بيلد غالمانو جهلك بيعيران علمنا لأنتود علمك لمضرسين ألا بانكردينا يا إنو إنو أنفع علمكينا consulka safaaradda Soomaaliya ee Uganda Ali Qadar Wardheere ayaa culimada Soomaaliyeed ku amaanay sida mar walba ay u taagan yihiin fidinta diinteena suuban marka wadaad ayaa hadda ka hor wuxuu joogay tuulo asaga xoogaa u madax dheer yahay dad uu rabay inuu tuugnimo ku dhiirigeliyo markaas uu wuxuu rabaa dadkii inuu ka dhaadhiciyo hatooyada inay bannaan tahay marka wuxuu yiri baraa namala dhacdo ka boobta bisinkay lahayd suuratul baraa bisinkeediba namala dhacdo yiri marka wuxuu ka dhigay quraanku inuu isdhacayo marka culimooy naga dhiciyo culimada marin habaabinayso noo badbaadiya dhalinyarta dadka sida qaldan wax noogu fasiraya hadda anagu cilmi ma lihiine idinka la idinka rabaa reer Kampala idinkuna culimada markay timaado saad isu jeceshihiin diinta u jeceshihiin isu jeclaada saacad walba ka shaqeeyo sidii aan dalkeenu ugu noqon lahayn annagoo nabada mustaqbal waarana loo heli lahay culimo soo dhawaada marka la soo dhawaada shirkan 12aad ee islaamka ayaa socon doona muddo 4 maalin ah iyadoo culimada ay wax badan kaga hadli doonaan inta uu shirka socdo Yusuf Maxamed Kashmir warbaahinta qaranka Kampala